mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanayaal iyo senatarayaal walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinkaga mahadcelinayaa fursadda qaaliga ah oo aad iigu dhegaysanaysaan kala soo jeedinta musharaxnimadeeda waxaan guddoonnada iyo xildhibaanada iyo senatarada aan u soo gudbinayaa salaan iyo hambalyada ay uga soo guulaysteen kuraasta baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan idin rajaynayaa in Ilaahay taladiina waafajiyo inaad daacadnimo ugu gudataan ammaanada Ilaahay oo idinkugu soo dhiibay shacabka Soomaaliyeed oo saboolka ah waxaa maanta idinka qormaysa taariikh ah ee marqaati ka tahay ay ka yihiin Ilaahay iyo shacabka Soomaaliyeed oo aad masiirkooda siyaasadeed matashaan iyo waliba indhaha caalamka oo idinku soo jeeda fiirinayana sida aad qarankiina uga badbaadisaan hadaanta uu ka sii dhacayo marka ay timaado waqtiga adag oo ay jiraan hubanti la'aanta iyo cabsida xooggan oo ku gadaaman halista laga qabo burbur ku yimaada ummadda dawladnimadooda ayaa waxaa jiritaanka qarnimada dalkooda badbaadiya xilkasnimada ay leeyihiin xildhibaanadiisa iyo senataradiisa u dhaartay xildhibaanada iyo senatarada qaranka ayaa ah kuwa laga sugayo go'aan qaadashada leh xalinta xalaasha ah ee ku dhisan wadaniyadda Soomaalinimada iyo Islaamnimada waxaan xildhibaanada iyo senatarada aan xasuusinayaa in codkiinu uu yahay afti dadweyne oo ay ku aaminaysaan masiirka ummadda iyagoo ka turjumaya dareenka ay qabaan rabitaanka dadkooda dalkooda iyo diintooda oo ay ku xaqiijinayaan ka badbaadinta halista maanta soo food saartay jiritaankooda runtii dabagal iyo rajo dambe midna ma lahan marka qarankeennu uu galo qabri mugdiya oo ay adag tahay sidii looga soo saari lahay taariikh nololeedkayga magacaygu waa Saciid Ciise Maxamuud waxaan laba jeer oo hore aan ka soo qayb galay tartanka doorashada madaxweynaha waxaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa aan ku soo qaatay cilmiga sayniska iyo cilmiga hogaaminta siyaasadda waxaan waaya aragnimo ka soo kororsaday qorshaynta iyo istiraatiijiyada lagu hagaajiyo hogaaminta dalka horumarinta dimuqraadiyadda dalka iyo wanaajinta maamulka dalka waxaan dalka gudihiisa ka soo qayb galay ololaha dadweynaha lagu barayay qorista afka Soomaaliga 74 iyo tirakoobkii dadweynaha ee 75 oo labadaba aan ku galay qasax dheer iyo ufrow ee gobolka Bay waxaan 77 aan ka soo qayb galay dagaalkii lagu xoreynayay Soomaalida galbeed waxaan 83 aan ka noqday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed baraw wax ka dhiga kulliyadda kimikada waxaan siyaasad ahaan aan aaminsanahay aragtida ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda bulshada social democracy iyo siyaasadda dhexdhexaadnimada political neutrality waxaan hayaa qorshooyin siyaasadeed oo fulinta waxqabadka ballanqaadyadooda aan aad ugu kalsoonahay meelmarintooda inay Soomaaliya ku gaarto inay noqoto dal ismaamulkeeda oo madax bannaan oo ay hesho hogaamin wanaagsan deganaansho siyaasadeed xasilin amni adeegyo dadweyne qorshooyin istiraatiijiyadeed oo lagu hagayo siyaasadaha arrimaha gudaha iyo kuwa diblomaasiyadda arrimaha dibadda iyo nabad ku wada noolaanshaha ay dadweynuhu ku wadaagaan barwaaqo sooran dhaqaale waxaan ku kalsoonahay inaan waaya aragnimadeeda iyo aqoonteeda aan si wanaagsan oo wadaneed daacada aan ugu adeegayo gudashada xilka madaxweynaha Soomaaliya haddii aan ku guulaysto doorashada madaxweynaha xusida halgamayaasha Soomaaliya asal ahaan waxay ahayd wadan qabiilku dastuur u yahay oo ay dadku lahaayeen beelo ku taloobay wadaaga afka diinta dhaqanka iyo isirka Soomaalinimada waxaan u mahadcelinayaa aasaasyaashii Soomaalinimada oo ahaa awoowayaasha ay ku abtirsadaan Soomaalidu oo soo difaacay qarniyaal badan dhulka badaha wabiyada iyo khayraadka dabiiciga oo ay maanta leedahay jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan aqoonsanahay in islaamku uu yahay diinta dalkeenna iyo aqoonsiga Soomaalida waxaan u mahadcelinayaa culamaa diinka Soomaaliyeed oo naf iyo waqtiba u soo huray in Soomaaliya ay noqoto dal muslim ah waxaan u mahadcelinayaa intii u soo halgantay in Soomaaliya ay noqoto jamhuuriyad leh hal madaxweyne hal dawlad hal calan hal dastuur hal dal hal diin hal dad iyo hal caasimad oo noqota xarunta dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan qirayaa in mudaharaadku uu yahay xaq iyo xorriyad halgannimo oo yeelkooda uu yahay in shacabku ay sameeyaan iska caabin nabadeed oo looga soo horjeedo awoodda diidan xuquuqaha iyo xorriyadaha dadka dalka iyo diinta waxaan mahadcelin u hayaa halgamayaashii wadaniinta Soomaaliyeed oo naftooda iyo maalkooda u soo huray mudaharaadyadii ay dhiigga badan ku daateen oo dalka lagu soo xoreynayay laguna midaynayay wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha Soomaaliyeed oo soo hogaamiyay dalkeenna oo dhibaatooyin aad u badan kala soo maray ka keenista meel aad u fog oo aad u dhib badan waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii Soomaaliyeed oo xilalkooda ku wareejiyay sida nabadda ahayd oo lahayd hab maamuuska dimuqraadiyadeed waxaan si tiiraaya leh
aan u xusayaa taariikhda madow oo ay leedahay Soomaalidu oo sida cadaalad darrada ahayd loogu gaboodfalayay qaybo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan bulshooyinka dhexdooda loogu duusiyo xuquuqdooda kuwaas oo la soo haybsoocayay qarniyo badan waxaan si muruga leh aan uga raali gelinayaa cunsurnimada loo geystay dadweynaha Soomaaliyeed oo aan mudnayn in meel ka dhac loogu geysto haybtooda ay israhan uga soo jeedaan abtirsiga beelahooda gaarka ah wadanida Soomaaliya intii aan ilaalin lahayn dastuurka ku dhisan heshiiska bulshada ayaa waxaan taas bedelkeeda jeclaysanay karaameynta heshiis ku dhisan kaltalisnimo intii aan xoojin lahayn midnimada wada jirkeena ayaa waxaan xoojinay iskhilaafsanaan abuuray nacabtooyo si xun u kala firdhiyay shacabkeena hawlaha intii aan ciidankeena militariga halista dagaalyahanimadiisa aan ugu adeegsan lahayn la dagaalanka waxyeelaynta xagjiriinta oo dagaal arxan darro ah kula jira shacabka rayidka ah iyo dawladnimada Soomaaliyeed ayaa waxaan taas bedelkeeda isusnay inaan awood kala tilisnimo aan ugu adeegsano ciidankeena wadaniyiinta ah ee ku labisan calanka Soomaalida sida inay yihiin ciidan maleeshiyada ama booliska shacabka rayidka ah lagu caburiyo ama lagu waxyeelayo mucaaradka intii aan ka faa'iideysan lahayn horumarka kobaca dhaqaale ee ka jira qaliishka oo aan daris xigeenka nahay oo ay ku bahoobeen wadamada hodanka ku ah batroolka ayaa waxaan maslaxad moonay qabwani dhalanteeda oo horseeday abuurista cadaaltooyo bedeshay xiriirka saaxiibtinimo ee nagala dhaxaysay wadamadaas oo ku dhisnay walaaltinimada Carbeed iyo midda Islaamnimada intii aan la dagaalan lahayn musuqmaasuqa naafiyay horumar la'aanta dawladnimada dalkeena ayaa waxaan hoggaanka sare ee dawladda aan u dooranay siyaasiyiin kala talisi ah oo awoodda siyaasadeed u adeegsanaya sidii ay u tagrifin lahaayeen hantida qaranka iyo awoodda dawladda oo ay ku fushadayaan siyaasadaha u khaaska ah intii aan la dagaalami lahayn waxyeelada dadweynaha uga imaanaysa xukunka loogu hogaaminayo kaltalsinimada ayaa waxaan si cadaaltooyo leh aan ula dagaalanay madaxda siyaasiyiinta mucaaradka madaxa bannaan oo qaar ka mid ah ay soo hogaamiyeen dalka kana soo gudbiyeen waqti aad u adag intii ay ahayd in la raaco xeerka dimuqraadiyadda oo ah in loo hoggaansamo xukunka go'aanka inta tirada badan taladooda ayaa waxaa timid in la raaco xukunka go'aanka inta tirada yar ee dadka ku xukumaya maangaab macangeg iyo aqoongaab oo awoodda dalka ku soo koobay gacmo koox yar oo xagjirin kaltalisa intii ay ahayd inaan cambaarayno fashilka aan wax uga qaban weynay burburka dhaqaale ee dalka ku dhacay ayaa waxaan taas bedelkeeda aan isku mashquulnay isku indhasarcaadinta mashruuc dayn cafina oo ahaa madadaala dadweyne oo waqti dhumis ahay mudanayaal marwooyin waxyaabahan aaminsanahay iyo waxyaabahan diidanahay waxaad kala soo dhex bixi kartaan qorshooyin fara badan oo ku dhex duwan fikradaha aan aaminsanahay waxaan rumaysanahay in Soomaaliya ay yeelato dawlad dhexe oo xooggan oo sharci ahaan iyo ciidan ahaan si xooggan isugu haysa midnimada wadajirka dadkeeda iyo dalkeeda iyo inay yeelato dawlad goboleedyo ismaamulkooda madax bannaan waxaan rumaysanahay in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad ay tahay inay yeelato hannaanka madaxweynaha oo ay shacabku si toos u soo doortaan madaxweynaha waxaan rumaysanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu yahay madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha dalka oo iska leh awoodda ugu sarreysa qarnimada dalka waxaan rumaysanahay in xilalka madaxweynaha xildhibaanada iyo senatarada lagu xadido 2 jeer oo kaliya inay u tartamaan doorashada haynta hal xil waxaan rumaysanahay in xildhibaanada iyo senatarada aysan qaban karin xil ka baxsan waajibaadka shaqada baarlamaanka oo aysan ku dhex milmin shaqooyinka laanta fulinta iyo garsoorka waxaan rumaysanahay in fikradaha ay ku dhisan tahay dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliyeed macna ahaan iyo qasad ahaan iyo mabda ahaan ay tahay ballanqaad dastuuriya oo shacabkeeda ay ugu damaanad qaadayso dhowrista xuquuqahooda iyo xorriyadahooda waxaan aaminsanahay in madaxda haysata xukunka awoodda dawladda ay dulqaad u yeeshaan eedeymaha xilqaadkooda loogu soo jeedinayo taas bedelkeedana ay siyaasiyiinta mucaaradka madax bannaan ay iyaguna dhankooda ka muujiyaan geesinimada ay ku dhaliilayaan talaxumada maamul xumada iyo hoggaan xumada ee madaxda dawladda ku maamulayaan dalka waxaan aaminsanahay in hogaamiyaha wanaagsan uu yahay mid iska leh akhlaaq wanaagsan iyo damiir wadaniyad daacada iyo inuu dadkiisa u keeno xaqsoor bulsho oo xuquuq sama leh oo si cadaalad ay dadku ugu wadaagaan daryeelka adeegyada dadweynaha oo ay dawladdu bixiso iyo khayraadka dalka iyo inuu dalka ku hogaamiyo qorshooyin siyaasadeed oo lagu hagayo istiraatiijiyooyin waxqabad oo lagu horumarinayo hogaaminta arrimaha gudaha iyo diblomaasiyadda arrimaha dibadda waxaan aaminsanahay in dhaarta ay maraan shaqaalaha rayidka ah ciidamada iyo siyaasiyiinta
ka shaqaysa dowladda inay noqoto mid ay si daacada ugu adeegaan wanaagga guud ee maslaxadda qaranka iyo inay ka fogaadaan inay xilalkooda ugu adeegaan maslaxadda gaarka ah ee madaxda haysata xukunka dalka waxaan aaminsanahay in dib u hagaajin lagu sameeyo wanaajinta hogaaminta siyaasadaha diblomaasiyadda arrimaha dibadda si ay Soomaaliya u hesho saaxiibo cusub oo dhab ah oo isku halayn karto waqtiga adag ayna ka heli karto iskaashi dhaqaale oo ah ama maalgelin helista cilmiga cusub iyo farsamooyinka teknolojiyadda casriga ah waxaan aaminsanahay in la abuuro ururo u dhaqaaqa arrimaha bulshada oo dalka u horseeda sidii shacabkeena loogu samayn lahay isbedel bulsho oo curiya bulsho dimuqraadiya oo leh xaqsoor xuquuqda sinaanta bulshada waxaan aaminsanahay in waayeelka halgamayaasha howlgabka ah qoysaska saboolka ah iyo dadka naafada ah oo qaba baahiyada gaarka ah inay helaan xuquuqda daryeelka caafimaadka iyo mushaar lacageed oo daboola baahiyahooda nololeed waxaan aaminsanahay in Soomaaliya laga dhaqan geliyo in ka dhacdo doorasho qof iyo cod oo u dhacda si furan oo xor ah xaq ah xalaal ah waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay yeelato hannaanka daryeelka caafimaadka dadweynaha oo ay dadweynuhu ku helaan caymisada caafimaadka dadweynaha waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay sitaan oo haystaan hubka fudud si ay ugu difaacdaan xuquuqooda iyo xorriyahooda uu sharcigu u ogol yahay iyagoo hayshada hubka u maraya habraac ay ku helayaan shati sharciya iyo aqoonsi kadib marka la hubiyo dambi la'aantooda iyo caafimaad qabka maskaxdooda waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad ay wada leeyihiin shacabkeedu oo aysan ahayn dal ay milkiidiisa iska leeyihiin madaxda dowladda waxaan aaminsanahay in Soomaaliya aysan marna noqon wadan dowladiisu tahay mid maqaar saara oo madax banaanideeda iyo ismaamulkeeda jamhuuriyadeed ay noqoto mid hoos timaada kontroolka dal kale oo amriis ku shaqayso waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay si xor ah oo madax banaan ay u soo doortaan madaxda dowladnimada ku maamulisa heer deegaan iyo heer qaran waxaan aaminsanahay in dadku ay si xor u hadli karaan si xor ay fikirkooda u cabiri karaan si xor ay ficilhan u muuji karaan dareenkooda ku dhisan rabitaanka iyo kalsoonida iyo inay si xor u soo gudbin karaan cabashooyinka ay ku eedeynayaan maamul xumada iyo hoggaan xumada madaxdooda waxaan aaminsanahay in haweenka dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay ay yihiin kayd maskaxeed kaalin weyn ka qaadan kara horumarinta maamul wanaagga dalka waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay dagaal la gasho sharta aafaysay horumar la'aanteeda qarnimada dowladeed kuwaas oo ay ka mid yihiin qabyaaladda musuqmaasuqa kaljalasnimada xagjirnimada cadaalad darrada saboolnimada maandooriyaha ku tirsanaanta tugsiga kaalmada shisheeye maamul xumada hoggaan xumada madax bannaani la'aanta ismaamulka dowladda iyo faragelinta shisheeye iyo federaalnimada qabyaaladaysan waxaan aaminsanahay in dalka dib loogu soo curiyo caymisadii howlgabka iyo kuwa shaqaalaha waxaan aaminsanahay in si aad ah loo kordhiyo deeqaha waxbarashada dibadda iyo amaah lacageed in la siiyo ardayda wax ka baranaysa jaamacadaha ku yaala waddanka gudihiisa waxaan aaminsanahay in ardayda dhigata dhammaan dugsiyada waxbarashada asaasiga ah ay helaan quraac iyo qado lacag la'aana taas oo looga hortegayo in waxbarashada ardaydu aysan wax raacda ku yeelan saboolnimada qoysaskooda waxaan aaminsanahay in ardayda laga joojiyo imtixaanada sida guud oo dhexe looga qaadayo kuwaas oo walwal iyo walaac ku abuura caafimaad qabka maskaxda ardayda waxaana kuwaas lagu bedelayaa imtixaanada ay macallimiintu ku qiimeynayaan natiijada waxbarashada ardayga oo ay ku galaan fasalada dhexdooda sanduuqyada walba waxaan aaminsanahay in dib loo soo dhaabaco lacagta Soomaaliyeed oo ah astaanta qaranka ahna aalad dhaqaale oo aan looga maarmaynin wax ku kala iibsiga gudaha suuqyada dalka waxaan aaminsanahay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid ka yihiin dhismooyinka wadooyinka buundooyinka biyo-xireennada garoomada diyaaradaha dekedaha garoomaha ciyaaraha dugsiyada jaamacadaha isbitaalada xarumaha ciidanka xarumaha hay'adaha dowladda iyo farsamaynta doonyaha maraakiibta gaadiidka iyo gudaha dadweynaha waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay ka faa'iideysto istiraatiijiyada dhuleed oo ay ku curinayso ganacsi baaxad weyn oo ay ku hesho hodantiimo dhaqaale waxayna taas u suurtagelinaysaa in dalkeena xeebihiisa dheer ay ka curtaan dekado waaweyn oo xarumo caalami u noqda ganacsiga maraakiibta adduunka taas oo Soomaaliya ay macnaha ku noqonayso iftiinka rajada Afrika ugu dambaystii mudanayaal iyo marwooyin waxaan soo jeediyey waxqabadkayga 6 qorshood ayaan ku soo jeediyey 6 qorshood waxa waaye waa midda koowaad waa hagaajinta wanaajinta hoggaanka maamulka tan labaad waxa waaye horumarinta adeegyada daryeelka tan saddexaad waxa waaye horumarinta koobca dhaqaalaha dalka tan afraad waxa waaye horumarinta xaqsoorka hannaanka garsoorka dalka tan shanaadna waxa waaye amniga iyo difaaca qaranka dayactirkooda
tan ugu dambaysa waxa waaye hagaajinta hogaaminta diblomaasiyadda arrimaha dibadda mudan yaal marwooyin waxaan rajaynayaa inaad igu gacan siisaan inaad maartay macnaha igadhida Soomaaliya waxaan ugu dambeyntii aan idiin rajaynaya in codkiina ammaanada ah aad ku samata bixisaan dalkiina oo aad dadkiina u horseedaan mustaqbal iftiimiya oo rajo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.